إلهي ما هذله وما أنت هالكن سوق هاي كيني أنه مناسبات عن أنمد دهفورك أن كنت دهفور إنه بوجاكتا هالكن تلا سامبل كذا وجاريس وضبعات وجارا إيوه إلا 5,000,000 إيوه أفرتن كن إيوه بقول إيوه 2,000 oo maxaan ku raahdaa diyaarinta macallimiinta casharradooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad Ilaahay loogu mahad celiyo maxaa yeelay annagu dawladdan muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxa weey waxbarashadu waxa weey furaha nolosha bini aadanku waxay ku kala hormaraan hadaa doonayso wadan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality tayada uu siiyo iyo ahmiyada uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur ama dhalinyaro uu produce gareeyo uu soo saaro iyo ku xiran tahay xaqiiqatanna runtii sida aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan wax barnaa 65,000 oo arday ah insha Allah waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeena intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn aan galino in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba ama ilmo walba oo aan awood u lahayn iskuulada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la galiyay aad iyo aadna waxaan uga mahad celinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaada oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaanshaheenu maalin ka dambeysaba inuu gaarayo horumar talaabana aan hor u qaadeyno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahad celinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaateen sidii aad waxbarashada caruurteena aad kor ugu qaadi lahaydeen maxaa yeelay horey waa uga wada hadalnay wadankeenu muddo dheer iyo dib ku dhex jiray ama dawlad maxaan ku raahdaa la'aan aha ama dawlad aanan awood lahayn aan ahayn marka waxa kaliya aan ku hormari karno ama aan dalkeena hor ugu dhaqaajin karno waxay tahay annagoo taya waxbarasho caruurteena siinaa haddana runtii waa u soo jeedaan shaqo badanna waa qabateen waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badanna in aan ku darno iskuulo kale kordhino tirada wax ardada kordhino tayadoodana aan kor u qaadno taas noo balan ah taas markaan gaarno xaqiiqatan waxaan gaaraynaa dal la tartami kara dalalka kale caalamka la tartami kara oo si degdeg ah aan maxaan ku raahdo la jaan qaadi karno annagoo og dadkeenu inay yihiin dad talented ah Ilaahay siiyay hibo siiyay dhinac walbaba marka haddii aan siino fursadan ama toolska aan siino ardadeena inay noqon karaan arday ama dad dalkooda wax tara horumarkiisa iyo dhismihiisana ka shaqeeya insha Allah waa ku garab taaganahay haday tahay dhaqaale haday tahay dhiirigelin ku garab taaganahay maxaa yeelay waxaan garab taaganahay inaan ardadeena tayeeno waxaan garab taaganahay ardadeena inaan siino mustaqbal wanaagsan inaan siino ardadeena oo noloshoodana ku dhistaan dalkoodana wax ugu qabtaan caalamkana kula tartamaan marka hambalyaan leeyahay wasiir hambalyaan leeyahay insha Allah waa intaas uga sii dhawaano aan hor uga sii qaadno ma sanadin insha Allah waa ma sanadin